asalaamu calaykum soo dhowo libaax iyo libaaxad maanta waxaan doonayaa inaan kuu sharxo filim aad u xiiso badan oo lagu magacaabo master of baji waana filim ay ka buuxaan dhammaan hagardaamooyin khiyaanooyin iyo wax walba oo quseeya isdabamarin waxaana dareemayaa in maalmahan hoosudhac dhanka asxaabta uu jiro waxaan rajeynayaa inaad ka hesho muuqaalka adiguna aad la wadaagto ugu yaraan mid ka mid a saaxiibada si isagana ugu daawado dhacdada filimku waxa ay ku bilaabanaysaa koox dhalinyaro ah oo ku qaraxaysanaya maqaaxeyd iyagoo aad ugu camiranaya kushiinlihii joogay goobta mar quraysa goobta waxaa imaanaya mid ka mid a dhalinyaradii aabihiis kaasoo u wada sheegayay inay ku wada laabtaan tababarka dhalinyartu waxaa lagu kala magacaabaa shiin bin lii iyo gabadhan iyaduna lagu magacaabo mi waana walaasha ka yar lii intaa kadibna shiin waxa uu saaxiibadii u sheegayaa in mar uun uu noqon doono macalin tababar sidoo kalena uu caawin doono masaakiinta iyo dadka tabaalaysan saaxiibadii mar qura way ku wada qoslayaan shiin oo aad uga carooday dhaqankooda oo isaga tegayaa goobta balse gabadhii mi oo isla soo deji waxay kasoo daba cararaysaa shiin maadaama uu ka carooday maalmo kadibna xilli habeena uu ku aadan dhalashadii saaxiibkooda bin lii iyo shiin waxaa imaanayaan gurigii si ay ula qaybsadaan farxadiisa balse mar qura waxa ay dhaayaha saarayaan qoyskii saaxiibkooda oo la laayay dhammaantood halka isagiina aan la aqoon meel loo kaxaystay shiin oo barbaarayay dhammaan meydadka waxa uu ku arkayaa in lagu wada duray cirbad markiiba cirbadii waxa uu soo qaadayaa macalinkiisa si uu tuso macalinkii markii uu arko waxa uu sheegayaa in cirbadan uu adeegsan jiray dilaaga ugu qatarsan dalka China kaasoo lagu magacaabo Tial waxaana aad iskugu weydiinayaan sababta ay Tial iyo kooxdiisu u soo weerareen bin iyo qoyskiisa subaxii markii uu waagu dilaaco waxay dhacdadii oo idil ku faafaysaa magaalada ilaa gudoomiyihii uu ciidamadii ku amro inay toogtaan haddii ay arkaan qayb ka mid a Tial iyo kooxdiisa sidoo kalena sawiradii bin lagu dhajiyay dhammaan magaalada oo idil intaa kadib markii la gaaray habeenkii dadkuna ay wada hurdeen dhammaantooda waxaan baa aragnaa shiin oo soo jeeda mise mar qura waxaaba soo weeraraya isaguna qaar ka mid a kooxdii Tial iyagu waa in isagu uu yahay qofka keliya ee ka shaqaynaya sidii loo layn lahaa shiin oo adeegsanaya khibradiisa waxa uu bilaabayaa inuu iska difaaco ilaa uu u yimaado macalinkiisii oo ka badbaadiyo kooxdii intaa kadibna waxa uu tilmaamayaa shiin inuu aado shakhsi ku nool buuraha hoostooda oo lagu magacaabo Zayn waxaana usii sheegayaa in macalinkaasi uu tago kana barto tababar halis ah oosan cid kale aysan aqoonin waxaana usii sheegayaa in goobtan uu isaga tago maadaama kooxdii mar kale ay soo weerari karaan isagoo usii tilmaamaya in macalinkan uu yaqaano fani dagaal oo halis ah laakiin uusan baraynin ilaa qof caawin doona mooye masaakiinta intaa kadibna shiin wuu aqbalaya subaxii markii waagu dilaaco waxa uu imaanayaa goobtii isagii iyo saaxiibadii uu macalinkii ku tababari jiray isagoo sagootinaya dhammaan saaxiibadii uuna sheegaya inuusan joogsan doonin ilaa saaxiibkii uu usoo dhiciyo xaqiisa in cabaara kadib shiin markii uu yimaado goobtii uu joogay macalinka waxa uu bilaabayaa inuu la hadlo laakiin macalinku marnaba uma muujinayo wax dhaqdhaqaaq ah ilaa shiin uu sidaa isaga fadhiyo meesha muddo 3 maalin ah isagoo aan waxna cunin waxna cabin keliyana sugayin mar uu macalinka la hadlo in yar kadib macalinkii uu soo dhaweynayaa isagoo u dhiibaya boorso ay wax ku jiraan sida iska cadna macalinku waxa uu ka qaadayay imtixaan uu ku qiimeynaya keliya in diyaar uu yahay in shaygan uu barto iyo in kale shiin oo ka muuqato furxad waxa uu soo daba kacayaa macalinkii ilaa ay yimaadaan gurigiisa macalinkii markii uu galo gudaha guriga wuxuu soo xiranayaa albaabka halka shiinna yirida macalinku ay u ahayd hooy iyo meel uu joogo wuxuuna bilaabayaa inuu wax soo ugaarsado kadibna uu dubto balse isagoon afka saarinna waxa uu u keeni jiray macalinka si keliya uu ugu soo dhowaado wuxuuna habeenkii iska seexanayaa yirida hore ee gurigii macalinka isagoo aan hadal oranin subaxii xiga macalinka markii uu arko waxa uu sheegayaa inuu bilaabayo tababarka maadaama uu kasoo baxay imtixaankii uu ka qaadayey shiin oo aad u faraxsan waxa uu si fiican isaga fiirinaya waxa uu sameynayay macalinkiisa si uu u fahmo ciyow intaa kadibna macalinku waxa uu ku amrayaa inuu qaado dhaxaan culeyskoodu ay ka badan yihiin ku dhowaad 120 kilogaram isagoo ujeed ahaan ka doonayay in murqaha gacantiisu ay adkaadaan oo aysan hadhow dareemin dhaawacyada iyo darbooyinka uga imaanaya cadowgiisa dhanka kale tuuladii markaan waxaan aragnaa hogaamiyahan oo kooxdiisa aad uga caraysan kuna qaylinaya maadaama uusan ilaa hadda garan halka uu jaaniya cirib dhigay shiin wuxuuna ciidankiisa mar kale ku amrayay inay dilaan shiin macalinkiisa subaxii xigana dadku waxayba ka war helayaan meydka macalinkii oo wadada yaala iyagoo weliba aad uga naxay geeridiisa dhanka kale shiin tababarkii waxa uu qaadanayaa si fiican isagoo aad uga soo baxaya wixii uu macalinka u diro balse markaan macalinkiisin waxa uu sheegayaa inuu ku laabto tuulada uu ka maqlay war aanan fiicnayn shiin uu ka aqbalaya markii uu soo gala gudaha tuulada wuxuu arkayaa boor ay ku qoran yihiin shiin wanted yacni shiin waxaa raadinaya booliska oo waxa uu dilay macalinkiisa waxaana arrintaasi oo idil ka shaqeeyey dilaagii oo arrintan isaga dusha ka saaray maadaama shiin uu tuulada ka maqnaa in cabaara kadibna shiin waxa uu bilaabayaa inuu isqariyo oo si hoose uga dhex socdo tuulada wuxuuna mar qura imaanayaa iskoolkii uu macalinkiisi ku tababari jiray isagoo aad u murugaysan maadaama uu ahaa aabihiisa labaad kadib geeridii aabihiisa markii uu soo galay xafiiska macalinkiisa wuxuu arkayaa cirbadii uu adeegsaday dilaagii dilay qoyska saaxiibkiisa bin oo taalo qolkii xafiiska wuxuuna markiiba dareemayaa in macalinkiisa iyo qoyska saaxiibkiisa uu wada dila hal nin oo lagu magacaabo Tial sidoo kalena dilka macalinka uu isagoo kusoo gediyey shiin oo aad u caraysan waxa uu isaga soo laabanayaa tuuladii laakiin mar qura waxaa milicsanaysa gabadhii May waxay ka codsanaysaa in marka hore ay u tagaan saaxiibkoodii Lee oo noqday daandaan yacni daroogiiste iyadoo u sheegaysa in kadib geeridii macalinkiisa uu sidan isku bedelay shiin oo arrintai kusii badatay wuxuu haddana bilaabayaa inuu soo boqdo qabriga macalinkiisa isagoo u ballanqaadayo inuu u argudo wax walba uu dhaca wuxuuna isaga soo laabanayaa buurihii iyo macalinkiisii Zayn si uu usii wato tababarkiisa
ardaydiisii halka macalinkiina uu sheegayay in markan uu diyaar u yahay inuu baro fan dagaal oo aysan cid kale aqoonin ana markiiba uu bilaawaya inuu sharxo qaababkii iyo xeeladaha la adeegsado muddo kadib maalin isagoo shan kasoo toosay hurdada waxa uu arkaya in macalinkiisu uusanba goobtii joogeen laakiin waxa uu u reebo waraaqada ay ku qornayd waan ku baray waxa aad doonaysay ee orod raadso kuna difaac dadka masaakiinta shan markiiba waxa uu xirxiranayaa qalabkiisa isagoo u soo jihaysanaya dhanka yuutulada in yar kadib markii uu soo galo wuxuu arkayaa saaxiibkiisa lii oo ceersanaya koox ka afduubatay walaashiisa mee na sheegaysay isaga in gabadhan ay afduub ahaan u haysan doonaan inta uu ka bixinayo lacagta shan oo aan raggii hadal kale ku oran waxa uu soo kaxaysanayaa saaxiibkiisii lee isagoo ku xirxiraya xargo maadaama uu daroogaysnaa balse markiiba waxaa haddana soo weeraraya 3 nin shan oo adeegsanaya khibradiisa dagaal waxa uu markiiba ka takhalusayaa 3dii laakiinse mar qura waxaa haddana u imaanaya shakhsi kale oo waji qarsoon mise si fiican markii uu eego waaba saaxiibkiisii beno uusan muddo arag shan oo aad u faraxsan markiiba waxa uu kusoo cararayaa saaxiibkiisa balse benon waxa uu muuqan uu iska kala tuuraya isagoo u sheegaya in halkan uu u argudan doono maadaama uu dilay dhammaan qoyskiisii kana dhuuntay tuulada shan oo la yaabana arrintaa waxa uu bilaabaya in marka hore uu dejiyo saaxiibkiisa iskana bari tiro arrinta suuqa loo geliyay intaa kadibna waxa uu soo aadayaa hogaamiyihii tuulada maadaama uu keliya ogaa inuu yahay ninka keliya isaga ku kalsoon sidoo kalena aaminaya hadalkiisa mise markiiba waxa uu imaanayaa goobtii oo ay ka socoto tartan u dhexeeya laba nin oo kasoo jeeda jabaan iyo jina ilbiriqsi gudahoodan waxa uu milicsanayaa isagoo laga raynaya kii ka socday jina shan oo iscelin waayey waxa uu imaanayaa saaxadii tartanka muddo koobanna waxa uu ka takhalusayaa ninkii isagoo weliba adeegsanaya khibradiisii uu soo baray macalinkiisii seen intaa kadibna waxa uu yeeraya hogaamiyihii tuulada isagoo u sheegaya inuu ku faanayo maadaama uu soo hoyay gool sidoo kalena uu ogyahay inuusan dilin macalinkiisa iyo weliba qoyska saaxiibkiisii been wuxuuna si kal iyo laaba uga codsanayaa inuu qaato lacag una tababaro dhammaan dhalinyarta tuulada shan markiiba waa uu ka diidayaa isagoo u sheegaya in macalinkiisa uu kula ballamay intani uusan cidin bari karin intaa kadibna uu kasoo tagaya isagoo iska soo qaadanaya lacagtiisii una geynaya kuwii afduubtay gabadhii mee ee lii ka rabay lacagta markii uu siiyo way ka diidayaan inay usoo celiyaan gabadhii shan oo aan meel kala dayinba markii waxa uu bilaabayaa inuu garaaco dhammaantood intaa kadibna waxa uu sii gooyaa gaari meesha yaalay oo ay ugu buuxin daroogo daqiiqada yar kadibna waxa uu usoo laabanayaa saaxiibkiisa isagoo u sheegaya in walaashii mee uu usoo furay laakiin isaga halkan uu sii joogo inta ay ka baxayso daroogada balse gabadhii mee oo taagneed gadaashiisa waxa ay u sheegaysaa shan inuu isaga tago goobtan oo idil maadaama uu soo dilay mid ka mid a kooxdii uu hadda garaacayay ayna sidoo kale baadagoobayaan booliiska magaalada shan waxa uu la yaabayaa hadalkii mee maadaama raggii uu garaacay keliya uu ku dhuftay darbooyin iska basiid ah oo aan cidina dilaynin isagoo yaabanna waxa uu labadiisii saaxiib usoo kaxaynayaa gurigii macalinkiisa si ay halka uga helaan ammaan halka isagiina wax yar kadib uu kusoo laabanayo tuuladii si uu u eego raggii uu garaacay ee la sheegay in toos uu nafta u dhaafiyey markii uu si fiican u eego jirkiisa waxa uu ku arkayaa cirbadii uu adeegsan jiray dilaagii tiyaal oo xitaa dilay qoyska saaxiibkiisa been iyo macalinkiisii markii uu si fiican u barbaaro jirkii meydka waxa uu haddana ku arkayaa katiinadu lahaa hogaamiyihii tuulada si fudud markiiba shan waxa uu ogaanayaa inuu yahay dilaagii ka dambeeyey waxaan oo idil waxaana markii usoo laabanaya goobtii macalinkiisa isagoo saaxiibadii u sheegaya in toos uu waajihi doono hogaamiyihii tuulada subaxii xigay markii uu yimaado goobtii waxa uu maqlayaa isaga oo la hadlaya shakhsi kale una tilmaamaya daroogo meel taalay dhanka kale lii isaguna markaan waxa uu imaanayaa saaxiibkiisii been isagoo u tilmaamaya in shan uusan ahayn qofka uu ku tilmaamayo waxa tuuladana uu ugu tegay daraadda si keliya uu kuga argudo ama shin isaguna waxa uu imaanayaa hogaamiyihii isagoo si cad ugu sheegaya in dhammaan sirihiisa oo dhan uu hayo uuna halkan u yimaado keliya argoostasho wuxuuna tusayaa dhammaan wixii uu soo arkay hogaamiyihii oo isagoon meel kala dayinna uu qiranaya isagoo si cad ugu sheegaya inuu yahay dilaagii tiyaal wuxuuna shan u tilmaamayaa in sidan uu u dhaqmo keliya uu ka dambeeyay aabihiisa maadaama uu ka hor istaaga wax walba uu tuulada uga noqon karay hogaamiye shan haddana waxa uu sii hogaanaya in isagu uu yahay kii dilay aabihiisa wuxuuna markiiba bilaabayaa inuu la dagaalo laakiin shan oo laga aboodbatay markiiba waxaa lagu bilaabayaa garaacidda mise waxaaba garabkiisa imaanaya saaxiibadii lii iyo bink si ay u difaacaan tiyaal markii uu dareemay in culays uu soo fuulay waxa uu la soo baxayaa cirbadii isaga oo markiiba ku daraya been shin markii uu arka dhaawac saaxiibkiisa waxa uu bilaabayaa inuu iska joojiyo dagaalka lana soo cararo saaxiibkiisa si ay u badbaadiyaan balse dhaxinta ay sii socdeen waxa ay fadhiisanayaan geed hoostiisa mise been markiiba waxa uu ka cudur daaranayaa saaxiibkiisa isagoo ka codsanaya inuu saamaxo maadaama uu ka aaminsanaa qalad yar kadibna waxa uu ka hamaansanayaa goobtii shan iyo saaxiibkii oo ay ka muuqato murug daran waxay duugayaan saaxiibkooda iyagoo u ballanqaadayay in si walbo ay noqoto ay u argudi doonaan sidoo kalena ay layn doonaan tiyal iyo kooxdiisaba intaa kadibna shan waxa uu iska bilaabayaa inuu sameeyo tababarkii macalinkiisa isagoo maanka ku hayay in waqti uu u argudi doono saaxiibkiisa maalmo kadib xilli haween ah saaxiibadii oo wada jiifa shin waxa uu kasoo toosaya hurdadii isagoo si toosa usoo aadaya gurigii tiyaal mar qura markii uu kasoo duso gurigii waxa uu meel duleela ka eegayaa tiyaal mise markiiba waxa uu ogaanayaa in shakhsigan uu yahay macalinkiisii yaraantiisa waxbare ee u diray macalinkiisii kale eyseen sidoo kale xitaa lagu sheegay inuu dhintay isaga oo taagan meeshiisii macalinkii waxa uu dareemayaa in qof uu soo galay gudaha guriga markiiba waxa uu soo baxayaa banaanka mise wuxuu arkayaa shin uu goobtii taagan isagoon meel kale eeginba waxa uu uga dhacayaa xaqiiqdii wuxuuna u tilmaamayaa in isaga iyo aabihii yacni shan aabihii ay meel kasoo wada xadeen lacag laakiin in yar kadib markii ay kala qaybsadeen in shan aabihii uu diiday inuu qaato lacagta
macallinka una sheegay inay u celiyaan goobtii ay ka soo xadeen, sidaana ay isugu dhaceen. wuxuuna usii sheegayay inuu doonayay wixii uu ku sameeyey aabihii in isaga uu ka argoosto, waxaana mar kale labadooduba isku bilaabayaan dagaal. markii koowaad macallinkii waxa uu si aad u garaacayaa Shane ilaa uu ku dhaco dhulka, laakiin Shane mar qura uu soo istaagaya isagoo si adag u garaacaya toogtan macallinkii, weliba khibradii uu soo baray macallinkiiseen, ilaa macallinkii uu ka cudur daarto oo aad ugu qeeliyo, isagoo ka codsaday inuu u dhiibo keliya booliska intii uu dili lahaa, balse keliya waa khiyaano oo islaha ku dil mar kale Shane. wuxuuna bilaabayaa inuu mar kale si aada u garaaco ilaa Shane uu ku dhaco dhulka. tabardaro darteed macallinkii markaan waxaa galaysa farxad, isagoo islahaa in toos uu u dilay markaan Shane, balse mar qura waxa uu ka war helayaa garaacid waali ah iyo Shane uu kasoo toosay dhulka ilaa ay nafta qabato oo uu tabarbeelo kuna dhaco dhulka. Shane oo markaan doonayay in toos uu nafta u dhaafiyo waxaa imaanaya goobtii booliskii tuulada, iyaga oo qabanaya macallinkii una kaxaynaya xabsiga. ugu dambeynna filimka waxa uu soo dhammaanaya macallinkii inta aan loo kaxaynin xabsiga waxa uu Shane siinaya buug ay ku qoran yihiin dhammaan asraartiisa, isagoo u tilmaamaya inuu yahay wiil aad u karti badan. haddaba waxaynu soo gaarnay gabagabada iyo gunaanudka mawduuceeni maanta. waxaan rajeynayaa in muuqaalka aad la wadaagi doonto ugu yaraan mid ka mid ah saaxiibada si isagana uu daawado.